kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood nagala socotaan waa sabti taariikhduna waa 9 May wararkii ugu waaweynaa xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijkan ku soo qaadanaynaa waxaanu marka hore ku bilaabaynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa sheegay mar uu u waramayay qaar ka mid ah warbaahinta dalkiisa in ay caawa ka sugayaan Iran hindisaha nabadda inay markaa ogolaanshiyo ka keento oo wada hadalkii dib la isugu soo laabto waxyaabaha markaa cajiibka ah ee maalmihii u dambeeyay warbaahinta haystay waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku baryootamaya war ogolaada nabadda Iranay hindisaha nabadda aan ogolaada wada hadalka isugu nimaadno Iran waxay leedahay u fiirsada Iran waxay leedahay tartiib waxba iswareerin daraasadaan ku haynaa waa qiimeynayna laakiin haddaad degdegsan tahay macalinka weyn waxaa rabta sameey Trump marka waa laga dabageeyay waa la tijaabiyay odagu inuu dagaalku ka sii cararayo la Iraniintu marka waa tartiibtooda waqti iyo wax wareer dhan ma haysto waqti ay idin qabtay marka hore ku soo galay sheekada ina inta Soomaaliyeed kaga soo jawaabtaan 3 bari 4 bari way fiiriyeen gabgable waxay dhaheen waqtiga rabnaan ogolaanayna maada shaqo nagu leh oday marka hadda waa wareersay oday meel laga jiro ma yaqaano haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump waxa uu sheegay in ay ka sugayaan Iran dhankeeda caawa inay ka sugayaan inay soo jawaabto isagoo u waramayay shabakada la yiraahdo CNN ee laga leeyahay waddanka Mareykanka Trump wuxuu sheegay in maamulkiisu ay sugayaan caawa Iran inay soo jawaabto oo ay aqbasho hindisaha wada hadalka ujeeda shalay waxaan soo qaadanay wasiirkiisa arrimaha dibadda oo caawa sugayna kana sugayna Iran ma bahadlaysaba waxaas wali daraasadaan ku haynaa leeyim wax oo dad xataa waaweyn kama hadlayaan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwaas waxay leeyihiin hindisihii daraasadaan ku haynaa markii xogaa la isku afkarto ilaa markii dambe Mareykanka ay wareereen ay yiraahdeen wararta yaa xukuma kulaha Iran yaa xukuma baxay marka sheekadaas halkaas ee bare war isna goordhow ay warbaahinta Mareykanka qoreen oo Al Jazeera lagu daabacay waxa uu leeyahay wargeysyada Mareykanka qaar ka mid ah waxay leeyihiin waxaanu filaynaa in uu dib u bilaaban doono wada hadalka Mareykanka iyo Iran isbuuca nagu soo aadan haddaba waxaa la sheegayaa isbuuca nagu soo aadan bilowgiisa in wada hadalladu ay dib u bilaaban doonaan ayna ka dhici doonaan caasimadda dalka Pakistan ee Islamabad haddaba Iran ayaa waxaa la sheegay markii ugu horeysay inay markaa ka soo jawaabi doonto hindisaha oo markaa laga wada hadli doono arinta barnaamijkeeda nuclearka marka warbaahinta marka Mareykanka waxay leeyihiin bilowga toddobaadka sidoodaba nimankan gaalada wuxuu u bilowdaa isniinta sabtida maanta iyo axadda maanta iyo macnaha toddobaadkii hore xisaabsan toddobaadkooda marka isniintu bilaabanaya marka bilowga toddobaadka soo socda markay leeyihiin waa isniinta iyo talaadada iyo meelahaas inuu bilaabanayo laakiin waxa soo dhan waxa ka hadlaya waa madaxdii Mareykanka waa warbaahintii Mareykanka laakiin Iran waxaasa waqtigaasa bilaabanayo waqtigan ma bilaabanayo iyo maba ku jiraan xisaabtaas maba u qornaayo warkaas kuma jiraan dhanka kale marinbiyoodka Hormuz xaaladiisu waa sidee marka maanta shalay wixii dhacay waa ogeyn habeen hore wixii dhacay waa ogeyn laakiin maanta waa sidee xaaladdu waa degatahay wareer dhan ma jiro nimankii Iraniyiinta ku feesteynaya meel walba maraakiibtii sidii meesha ugu xanibayeen midkii ay iyagu fahmaan kaliya gudbinayaan Mareykan qorshe kasta waa la yimid waa u shaqay waay Trump handadaad kasta wuu keenay adiga jeebka ku ridaalin handadaadaada qaado adig waxaan naga cunaysa bal adeer meesha
marka hadda marka waxa leeyahay xaaladdu way degan tahay laakiin waxay murugo iyo dhibaato haysataa dawladihii khaliijka qatar iyo waxay leeyihiin waxa kan in xal loo helo waayo sababtoo ah gaaskii iyo wixii meesha mari lahaa iyo meesha albaabkii loo fadhiyaa mushkilada meesha ka taagan nimanka imaaraatiyiintaana waxay rabaan way sameeyeen masar keensadeen wata xalay ka hadlayeen ciidamo masaariha alla keenay diyaarada wata wax kasta wata kaalayna difaaca ma masar difaaci karta imaaraat marka sheekadaasu marka iyaduna halkaasay maraysaa haddaba marka wixii akhbaaraada oo marka sheekadan ku saabsan Hormuz iyo wadahadalladan wixii kusoo kordha barnaamijyada dambe ayaan u gudbi doonaa markan waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Faransiiska ayaa maanta wuxuu kormeer shaqo ku tagayaa safar 3 wadan oo Afrikaan maanta wuxuu booqanayaa Masar kadib wuxuu u gudbayaa Kenya kadibna Ethiopia marka waa markii ugu horeysay 2017 markii ninkan uu xilka yimid uu isku abaabulo shir Afrikaanku ay ka qayb galayaan iyo waxaas iyo marka safaradaas ayuu isaguna mari doonaa hadaba Al Jazeera ayaa ka qortay warbixin hadaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay madaxweynaha wadanka Faransiiska Macron ayaa waxay booqasho uga bilaabanaysa Afrika isagoo isku soo mari doona dalalka Masar iyo Kenya iyo Ethiopia ayuu isku soo mari doonaa marka dalalkaas ayuu tagi doonaa cilaaqadooda iyo xiriirkooda iyo markan waa la sii kala socdaa Yurub iyo Mareykan iyo waa sii kala guranayaan marka hadda marka rajo waxa laga qabaa Yurubtii inay Afrika marka ku soo xirtaan marka hadda wuxuu leeyahay Masar soo maraya meelo badan iyo jaamacado oo Faransiisku leeyahay iyo meelaha soo kormeeraya kadib Kenya oo imaanaya madaxda Kenya is arkayaan madaxda Afrikaanka qaarkood meesha isku arki doonaan kadibna wuxuu soo gudbi doonaa Ethiopia kadibna markaas safarkiisa halkaas ayuu ku soo gabagabayn doonaa leey marka iyaduna marka waa hawl kale marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin culayska Mareykanka markii uu meesha ka baxay nimankii Europeanka ahaa waxay markan saaxiib ka dhiganayaan Afrikaanka marka uu soo socdaan Faransiisku markaas oo kaabo u yahay European Union hadda maqasho waa Faransiis iyo Jarmal kaabaka marka ayaga marka jihaynay wararka kale ee cusub waxa kamid ah Israa'iil way si waali ah ayay weeraro soo qaadalay 24 saac ee la soo dhaafay weeraro waxay qaaday aan la ogeyn waxa ay ujeedadeedu ahayd waxa bam ay ku riday ee koonfurta Lebanon waa la yaab markii weeraradu hadana dhamaadeen meeshii ka meysayaan nimanka Hezbollah daroonka socda gantaalka wiifaya ruuxan intee galeen intee ku jiraan adiga sheeg hadaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera qortay Al Jazeera waxay leedahay 85 weerar oo dhinaca cirka ah ayay 24 saac qaaday Israa'iil iyadoo la beegsatay sida ay tiri goobaha ay joogaan Hezbollah hadaba 85 weerar ee la qaaday 24 saac ayaa lagu bartilmaameedsaday gooba ay sheegtay Israa'iil inay ahaayeen makhaasino hubka lagu kaydiyo meelo gantaalaha laga soo rido iyo guriyo iyagu si gaar ah ay u isticmaalayeen ciidamada Hezbollah waxay soo kala sheegeen inay duqeeyeen goobo godad ah oo dhulka hoostiisa ah oo ay sheegeen in loo isticmaalayay inay hubka ku kaydsadaan nimanka la yiraahdo Hezbollah waxyaabaha marka la yaab kale wariyaasha ay ka soo warinayaan Lebanon waxay leeyihiin intaasoo weerar iyo intaasoo bam ah markii ay ku garaaceen oo ay siraadeen waa nasanaysaan ayaa haddana lagu soo bilaabay nimankii Hezbollah haddana jugtay ku hayaan marka halkaas isaguna dhibaato ka taaganaa haddaba qaybtan ugu dambaysa alaaba waxaynu ku soo qaadanaa wixii akhbaarada ee soo dhacay intii aynu barnaamijka ku jirnay
haddaba waxaa soo dhacay war muhiima oo la leeyahay Bahrain waxay qabatay 41 qof oo dadka shacabka reer Bahrain ah 41 ay qabteen marka waxay ku eedeynayaan inay la shaqeynayeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran Bahrain marka mushkilada ka taagan horena waa idinku sheegay nimanka xukunka haysta Bahrain oo boqortooyada ah waa sunniyiin laakiin shacabka boqolkiiba 70 dad gaaraya waxa lagu leeyahay waa shiico hadda koor xataa inta ku kaceen shiicada oo Iran ay taageertay iyadoo lala wareegi rabo boqortooyada ayaa Sacuudiga iyo ciidankeeyeen meesha sidaas lagu badbaadiyay marka hadda shacabka Bahrain waxay taageersan yihiin Iran dawladda iyo boqortooyaduna way ka soo horjeedaa Iran marka hadda 41 qof ayaa la qabtay mana ahan markii ugu horeysay xataa dagaalku markuu socday Iran iyo Mareykanka intaasoo boqolaal qof la xirxiray oo lagu eedeynayo dhamaantood waxa lagu eedeynayaa Iran inay la shaqeynayeen marka hadda marka saakay waxa la leeyahay 41 qof ayaa la qabtay waxayna sheegeen hay'adaha ammaanka ee dalka Bahrain inay dadka loo haysto inay yihiin dad la shaqeynayay oo u basaasay warbixintana u dirayay ciidanka ilaalada kacaanka Iran marka wararkaas ayaa soo kordhay haddii alla idmo wixii kale warar ee soo dhaca barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta waa maalinimo sabti asxaabay waa naga intaa like gareey oo share gareey barnaamijka hadda cusubtaan subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-ana follow gareey inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan